السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسور channel كان سويال كاميدي قodobadeen ugu waaweyn maanta waxa ay kala yihiin Ruushka oo gurmanaya dagaal ogayaasha hafta oo guuldarooyin kala kulmay Liibiya iyo Turkiga. Magacaygu waa Musa si fadlan haddaan u subscribe channel-kan subscribe inoo saar si aad ula socoto wararkeena iyo warbixinadeena ugu dambeysay adigoo mahadsan. Haatan ku soo dhawaada warkii faahfaahsan. Ruushka ayaa cadowsheed u shaqaysaasha ka tirsan ciidamada Bashar al-Assad ee jooga magaalada Darra ee koonfurta Syria u diray inay ka barbar dagaalamaan ciidamada dagaal ogayaasha General Khalifa Haftar ee jooga bariga Liibiya sida ay weerareen maxalli u sheegan wakaaladda wararka Anadolu. 24 Abriil taliyaha darajada sare ee Ruushka iyo kooxdiisa ayaa kulamo saxiiga la qaatay cadowsheed u shaqaysaasha ka barbar dagaalama ciidamada Syria ee jooga Darra. kulankaas waxay dawladda Ruushka ku soo bandhigtay heshiis soconaya 3 bilood oo askari ka tirsan bishiiba lagu siinayo $1 lana cusboonaysiin karo. Waxa lagu waramayaa in qaar ka mid ah kooxda cadowshaqasiyaasha ay diidan kuwa kalena ay ogolaadeen heshiiska. kuwa aqbalay heshiiska ayaa magaalada Darra ka soo aroori doona xoog kale oo cadowshaqasiyaasha kuwa aqbalay ayaa ka shaqeynaya inay magaalada Darra ka soo arooriyaan xoog kale oo cadowshaqasiyaal ah. ciidamada dawladda oo fadhigoodu yahay Tripoli ee la yaqaan Chene ayaa maalmo dhawaad dowlad badan ka qabsaday kooxda Haftar ee la baxay LNA iyadoo Turkiga ay ka caawinayaan diyaarad drone ah oo weysan gaalyahanada Syria iyo hub casri ah. ayaa ciidamada dawladdu waxay kooxda Haftar ka qabsadeen 3 magaalo oo ku teedsan xuduudda waxayna ku sii saqayaan saldhigga howlgallada kooxdaasi ee Tahran oo 65 kiiloomitir koonfur bari kaga aadan magaalada Tripoli. guul laga soo hooyay Tahran ayaa soo gaban karta dagaalka sokeeye ee Liibiya sida ay sheegeen saraakiisha dawladda. gudahantaas ay ku soo gabagabeynayaan wararkeena marka xiga intaan kulmi doono waxaan kaga tagay sidaas iyo amaan Allah.